baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka waxaa horyaala mooshin laga gudbiyay xildhibaan Sacdiyo Salaad Samantar oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. mooshinkan oo kii ugu horeeyay ee laga gudbiyo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaanaya wax ka yar 7 bilood oo ay jirto dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana mooshinkan uu leeyahay dhowr ujeedo oo kala duwan. haddaba maxaa waqtigan ku soo beegay mooshinkan yaa wada oo soo gudbiyay mooshinkan degdega ah. dhammaan su'aalahaas oo dhan waxaa kaaga jawaabaya barnaamijkan ee fadlan daawade like saar muuqaalkan subscribe-na saaro YouTube-keena si aad noola socoto mahadsanid. sida aan ka soo xiganay dadka wada mooshinkan waxay sheegayaan in mooshinkan uu salka ku hayo khilaaf siyaasadeed oo waqtigan ka dhex taagan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed. haddii aan ku horeyno Koonfur Galbeed, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxa uu aaminsan yahay in madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiinka agdhow ay weerar ku hayaan kaasi oo lagu diidan yahay in Laftagareen uu helo muddo kordhinta halka sano ah ee uu samaystay. wuxuuna aaminsan yahay Laftagareen in filla Soomaaliya ay ka dambeysay shirar lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu mucaaraday Laftagareen laguna diiday halkii sano ee muddo kordhinta ahaa ee uu samaystay. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxaana uu Laftagareen hadda bilaabay inuu baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa kala dagaalamo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiinta ka agdhow. wuxuuna Laftagareen haystaa xildhibaanada ugu badan baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo wax weyn u goyn kara xilligan. sidoo kale maamulka Puntland oo ah halka laga soo doortay xildhibaanad Sacdiyo Salaad Samantar ayaa diidan in xildhibaan Sacdiyo ay sii joogto golaha shacabka. waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Sacdiyo Salaad Samantar oo khilaaf xoogan kala dhaxeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo aysan isku fiicnayn muddooyinkii la soo dhaafay. waxaana xildhibaan Sacdiyo iyo wafdi ay hogaaminayso laga soo celiyay magaalada Boosaaso halkaas oo loo diiday inay ka degto xilli ay u waday deeq gargaar ah. waxaana uu khilaafka u dhaxeeya xildhibaan Sacdiyo Salaad Samantar iyo madaxweynaha Puntland uu salka ku hayaa. xildhibaan Sacdiyo oo mucaaradka la safatay una codeyn weyday markii ay dhacaysay doorashadii Soomaaliya madaxweynihii xildhibaanka soo siiyay ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka gadoodsan inay xildhibaan Sacdiyo ka raacday mucaaradka ayna si buuxda u dhisaysay Xasan Sheekh Maxamuud. ayaa Xasan Sheekh oo hadda ay Dani isku fahmi waayeen qaabka loo soo magacaabayo saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha amniga. awalna horey u waayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu hadda galayaa dagaal xoog leh oo ku qaadayo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dani oo hadda aan haysan garab siyaasadeed oo xoog leh ayaa waxa uu dhawaan magaalada Garowe ugu yeeray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. waxaana kulan ay dhowr maalmood wada qaateen oo ka socday magaalada Garowe lagu sheegay in Cabdicasiis Laftagareen iyo hogaamiyaha Puntland ay wada gaareen qodobo muhiim ah ayaga oo samaystay iskaashi siyaasadeed. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan dawladdiisu ay cusub tahay kulana jira kooxda Al-Shabaab dagaal xoogan ma doonayo inuu dagaal la galo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. waxaana uu dib u dhiganayaa wax walba oo waqtigan keeni kara khilaaf laakiinse hadda ma muuqato waqti uu ka sii gambado. waxaana uu hogaamiyaha Puntland waqtigan qaadaya tallaabo walba oo suuragal ah si uu dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud culays u saaro. isaga oo garab ka helaya hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen kaasi oo hadda muddo xileedkiisii saxda ahaa uu dhamaaday laakiinse dhawaan hal sano oo muddo korin ah ku darsaday. lama oga sida ay Saciid Cabdullaahi Dani iyo Laftagareen isaga difaaci doonaan filla Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka agdhow. waxaase muuqata inuu hadda bilowday dagaal siyaasadeed oo xoog leh u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar. sidoo kale lama oga halka uu khilaafkan siyaasadeed ka gali doono maamulka Galmudug oo uu hogaamiyo madaxweyne Qoorqoor kaasi oo kamid ahaa kooxdii madaxweyne Farmaajo oo duligay maamul goboleedyada ee sida weyn u taageersanaa. waxaana muuqata in Axmed Madoobe laftigiisu uu xilligan uga baxay dagaalkii Saciid Cabdullaahi Dani isagoo iskaashi iyo heshiis la gaaray dawladda dhexe ee Soomaaliya. lama sii oga sida heshiiskaasi u sii waari doono. waxaase maalmaha soo socda iyo bilaha nagu soo aadan isha lagu hayn doonaa sida madaxweynaha Soomaaliya ula macaamilo madaxda maamul goboleedyada iyo qaabka uu maareeyo khilaafkan cusub ee ka taagan. waxaana diiraddu ay saarnaan doontaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaabka uu wajaho. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. kulanti dambe oo xiiso leh.